habeen wanaagsan daawadayaal waa 1 November 2025 guddiga doorashada Somaliland ee jaaliyadda Paris iyo Île-de-France ayaa soo agaasimay munaasabad ballaaran oo loogu talagalay in lagu doorto gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland Paris iyo Île-de-France iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka. munaasabadda waxay ka dhacaysaa Paris halkaas ayaa lagu dooran doonaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. qaybaha kale ee barnaamijka ayaan idinku dugi doonaa. baan ku magac dheerahay waxaan kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee jaaliyadda Soomaaliya ku aasaaso Paris Île-de-France taariikh badan bay soo martay jaaliyadda Soomaaliya ee Paris maaha hadda mid bilowa waa mid muddo fara badan soo shaqeynaysa su'aal haddaan ugu laabto intii jirtay waxyaabaha la qabto waxaa kamid ahaa oo xusi karaa maashii ay ku timarkan Dr. Adan Ismaaciil madaxweyne Riyaale madaxweyne Cigaal waxaan raahdo madaxweyne Siray Allah naxariisto iyo qaar badan oo yimid way jiraan intaas soo dhacay qodbadayda laakiin marka hore waan soo dhaweynaya waa ku mahadsantiin aad ka soo qayb gashaan xafladda quruxda badan waxaan ogahay oo dareemaya dhammaantiin aad ogtihiin inay baahi badan jirto in loo yeesho Soomaaliland jaaliyad jirta oo ka shaqeysa Paris baahida jirta badan dareemaysa waa mid keentay inaynu la nimaadno oo aynu sameeyno jaaliyad milayn karta qulubta iyo doonista shacabka jaaliyadda Soomaaliya ee Paris taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaynu isku gargaarno isku wadatarno isku nimaadno meel wada tashano dad badan baa yimaada Paris maalin walba dadka la jiheeyo wax loo sheego sidoo kale waxaan xusi karaa oo ogtiin dhammaantiin Allah u naxariistay nadiif oo isna geeyay sanad bishii Ramadaan wax badan u qabtay jaaliyadda dhammaantiin waxaan ka baryaynaa fatxado martaan in Ilaahay u naxariisto oo qabriga waasiyo intaas fatxado dhammaantiin aamin hadalka badin maayo insha Allah waxaan rajaynaynaa xaflad wanaagsan si fiican loogu dhacdo doorasho loo fadhiya laba musharax baa jooga kii aad u odaysaan idinka codka siinaya gacan taag ayaad siin doontaan hadalkan waxaan ku wareejinayaa xiriiryaha isagoo siin doona qofkii had doona dabaday walka aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed Cabdi aad iyo aad baan horta idinka mahad celinaynaa aniguba ku jira kuwa lagu marti qaaday sidii naas kala soo ajiibay hawsha waxaa inoo waday rag odayaal ah oo muddo ka soo shaqaynayay anakuna odayaashii ka mida Paris waanu dareemaynay baahida jirta iyo waxa dhiman maanta aynu rabno inaynu buuxino waa baahi isu keentay qof waliba dantiisa gurigiisa uu kaga yimid u gaarka ahay sanad kadib kulli maanta waxaan u nimid inaan doorano gudoomiyaheena labadeena musharax ee inoo joogaan horta marka hore waxaan iska codsanayaa in muxuu ka dhintay Sheekh Nadiif faataxada in loo maro qadar daqiiqada gudoomiyaha jaaliyadda Faransiiska Lyon jooga oo doonay inuu 2 kilimood ku darsado oo inagala soo hadlay Lyon. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدومية جالية الصومالية في فرنسا أونلاين باتون ديركت ولا مغلية هالكاس كتانين ساي واحد روس الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان جالية الصومالية إيل دي فرانس واندين تعيدين يا شكلية لابا إلهي نوحن إذن كبرية حلقة قادين إنه إلهي إذن لا قرب قلو waxaan qurateen idinku waaninayaa aan jecelahay inaad goor walba fondé sur les valeurs de la République inaad sharciga dalka aad u hoggaansataan sida la démocratie sida la liberté et conscience d'expression l'égalité des droits et des devoirs la solidarité et les droits de l'homme intaasi inaad u hoggaansatiin guul iyo sharaf baan idin rajaynayaa kuwii wada shaqeeyana ilaahay wuu naga dhigayaa Somaliland ha noolaato jaaliyadda
waxaan halkan aad uga salaamayaa marti sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay xafladdaas sida quruxda badan la inoogu qabsoontay insha allah ilahi waxaan ka rajeynayaa inuu si wanaagsan noogu dhammaystiro aad baad mahadsantihiin insha allah wada shaqeyn wanaagsan baan iga rajeynaya hadduu maxamed soo baxo iyo haddaan uu soo baxaba waxa weeyaan jaaliyadii lala shaqeeyo iyadii guddoomiye ku-xigeenkeedaba meelo aynu isugu nimaadno ciidda oo aynu ku kulanno oo dadkeenu ay isku bartaan iyo caruuraheena iyo dadkeena kala fogaan mar qurays rag ama aan isgaranayn waxyaabahaasa kamid a ama u burdhiga waxyaabahan haddii alla ka dhiga doonayo inaan qabto aan doonaya inay igu taageertaan cod kale igu siisaan wax kaloo badanna kolley way jiraan oo dee khudbadda waan soo gaabinayaa dhammaan bulshooyinka reer somaliland xafladan quruxda badan kasoo qayb galay magaceedii gurigooyinba waxaan ku salaamay islaamta islaamka islaamka bacdi bariis waxa weeyaan caasimadda waddanka aynu joogno wixii ay qabsadaan ayaa qoyoonkeyga goboladna ay tusaale noqonaysa ay qabsanayaan wax badan oo aynu xaq u leenahay baa jira ciddii taageersan guddoomiye jesto idinka oo xora codkiina waan tirinaynaa markaas tiradan tirinaynaa majority-gan waa meesha dhaaf waa tirinaya eegaynaa horta kolley iba duwan eegaynaa tiraanu ku kala baxaynaa ma ogtahay afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 dhammaan dadka codeeyey waa 750 qof ayaa waxay u codeeyeen guddoomiye maxamed musharaxa koowaad ee maxamed jeesto caasimadda bariis musharax maxamed jeesto oo ku guuleystay oo ah dadkii maagoysanay si sharaf leh ayaan ugu mahad celinaa dhammaan dadkii codeeyey rag iyo dumarba waxa aynu halkaa ka wadi doonaa hawsheena sidaa awoodeed laba kelmadood ama in yar dhowr kelmadood ayay inoo oran doonaan labada musharax waxaan ku horeysiin doonaa axmed ismaaciil toddobaatan filaynay meesha fadhinay caawa muhiimadduna waxa weeyaan sidaan oo kale inay wax wanaagsan ay noogu qabsamaadaan ayaan aada ugu soo dhaweynayaa moogtay aadna waan ugu qanacsanahay qofku inuu tartamana way ugu qurux badantay moogta oo halkiisa ayaga halka gaadhsiisan yahay marka ma aha baashu ma aha moogtahay maxaa laygu eday waayey moogtahay waxa weeyaan waxay kamid tahay politigalkay kamid tahay moogta hadday kamid tahay moogtahay ninku hadduu kaa cod badan yahay kaa siyaasad fogay baa macnaheedu moogtahay marka waynu soo dhaweyneynaa waxaan leenahay kusoo dhawow jeesto guddoomiye aad iyo aad baan kugu hambaliyanayaa natiijada waxaan adkeetay 100%. sharafta leh iyo mar saddexaad iyo mar afraadba si guud baan idiin salaamayaa qof walba waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo mamsadkiisa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa jaaliyadda dhammaan intay i codaysay iyo intaanay codayninba waxaan kaloo u mahad celinayaa walaalkay axmed ismaaciil oo si sharaf iyo karaamo leh kulli midkaayaa dee guulaysan lahaaye markaa guulaystay iigu hambaliyeeyey iigu duceeyey imakana aan ku rajo weynahay inuu igu garab taagnaan doono haddii alla awoodda la ogolaado wixii dee aan tala iyo tusaale looga baahdo iyo shaqaba aad baad mahadsantahay walay axmed ismaaciil kolley imika xil weyn baa i fuulay nin xil qaaday eed qaad baa la yidhi waxaan u filaya caawa intaynan mas-uuliyadda dee aan qaaday ama i fuushay ama i saarteen inaanay midna saaranayn baan u filayaa iigu soo duceeya haddii allah awoodda la ogolaado in ilaahay hawshaa ballaadhan ee ii mateen
igu asturo hawl yar ma aha haddii allaha awoodda ogolaadaana waxaan muujin doonaa wixii awoodayda karti iyo dadaal baan muujin doonaa haddii allaha awoodda ogolaado kolley keligeyna talada igu noqon mayse kooxdee ila shaqayn doonta ayaa jiri doonta iyo mustambeedba haddii allaha awoodda ogolaado taladu ka go-do marka haddii allaha awoodda ogolaado saasaa igu ogaanaysaan saasaan igu soo ducaynaysaan qof walbana waxaan doonaya inaad haddii alla ka dhigo halkaan igula shaqayso waana idin mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu doorasho aad iyo aad u qurux badan baa inoo dhacday inkastaana qolihiidu guulaystay dimuqraadiyadda taasna dhigaysa halkan waxaa ku qoran sharci ay jaaliyaddu hore u lahayd jaaliyaddii hore ay jirtay uu soo waday sheekh nadiif allah naxariisto jaaliyadduna maaha jaaliyad maanta un la aasaasay de waa sida maxamed ay sheegeen waa jaaliyad dhowr iyo 10 sano jirtay marka hakad baa galay maadaama geeri nagu timi oo sheekhi aad intay allah naxariistay marka halkan waxaan kusoo jeedinaynaa dastuurka loogu talagalay jaaliyadda jaaliyaddu maaha in dad la iska doorto marka sida qorshaheedu yahay kabacdina halkaa lagaga hado oo aan dib waxba laysaga weydiin laakiin jaaliyaddan waxa weeye jaaliyad dimuqraadiya doorasho xor iyo xalaala ku timi sidaynu wada arkayseen dastuurna leh hadlana xisaabtami kartaan beritoole waad dhihi kartaan qodobadii aad noo sheegtay kumaydaan dhaqmin maxaa isbedelay aynu bilaabano bismi illahi raxmaan raxiim jaaliyadda somaliland in the france ee baris qodobada dastuurku waa sida tan soo socota bilow kadib wadatashi ballaaran iyo shirweyne guud oo lagu qabtay magaalada baris taariikhdu markay tahay 1 bishii 11 2025 waxaa la guddoomiyey in dib loo mideeyo bulshada somaliland ee ku dhaqan magaalada baris iyo guud ahaan faransiiska si loo sii xoojiyo wadajirka howlaha jaaliyadda somaliland ee faransiiska shirweynahaas ayaa sidoo kale lagu doortay guddoomiye cusub kaas oo buuxin doona booskii guddoomiye ee u baneeyey allaha u naxariistay sheekh nadiif oo horey u ahaa haldoor muhiim ah oo bulshada dhexdeeda kasoo shaqeeyey jaaliyaddu waxay aada ugu mahad celinaysaa shaqadii iyo dadaalkii uu guddoomiyihii hore soo qabtay iyadoo rabbina naxariis uga baryaysa xeerka jaaliyadda somaliland ee faransiiska waxaa si rasmi ah loo waafajiyey sharciga faransiiska ee soo baxay 1 bishii 7 1901 kaas oo dhigaya in muwaadin kasta ama koox bulsho oo kasta oo ku dhaqan faransiiska ay xaq iyo sharci u leedahay inay samaysato urur ama hay'ad jaaliyad aan siyaasad ku dhisnayn